halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal meel kasta oo aad inaga maqlaysaan. qodobada aad barnaamijkeena duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo cudurka COVID-19 ugu geeriyooday Muqdisho, Mareykanka oo kaalinta koowaad ka galay dadka u dhimanaya cudurka corona, ra'iisul wasaaraha Britain oo u mahad celiyay shaqaalaha caafimaadka dalkaasi ee naftiisa badbaadiyay. waxaad kalood maqli doontaan marka hore aniga shakigaas uu igu jiray. calaamada ugu horeeyay oo aan dareemay waxay ahayd neefta inay xoogaa aad ii dhibtay, kadibna aan markii saas oo kale neefta ii qabato daawooyinka ku fiicnaan jirayna inay wax iga tari waayeen. waa mas'uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo inooga waramay sida uu ugu dhacay COVID-19. ciyaarihiina kama marna barnaamijka. waxaa si wada jir ah u soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. anigoo Bishra Nuur Maxamed ahna waan idin daadihin doonaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Kowtar Maxamed Cabdullaahi. mahadsanid Bushra. maalqabeenka caanka ah ee u dhashay wadanka Mareykanka ee Bill Gates ayaa sheegay inaysan wax sahlan ahayn in muddo 18 bilood gudahood talaal loogu helo fayraska corona, taas awgeedna loo baahan yahay in la taxadaro. Mr. Gates oo maalgelinaya mashruuca cilmi baarista iyo horumarinta ayaa sheegay in dowladaha qaar ay ku qasbanaan doonaan inay magdhow bixiyaan. mar uu arrintan ka hadlayayna Mr. Gates waxa uu yiri We'll need to fund about 10 most promising constructs. waxaan u baahannahay inaan maalgelinno ilaa 10 tallaal oo kala duwan, sababtoo ah waxaan rabnaa inaan ogaanno midka wax daweyn kara ee saamaynta leh, gaar ahaan kuwa saamaynta ku yeelan kara waa tallaaladane dadka da'da ah ee difaaca jirkooda uu aadka u jilicsan yahay, dhibaataduna ay haysato. waxaan rabnaa wax 5 ilaa 6 sano lagu hagaajinayay inaan ku hagaajinno hadda 8 bilood oo keliya. bangiga adduunka ayaa sheegay in dalalka ku yaala koonfurta Aasiya oo Hindiyana ay ka mid tahay in ay wajahayaan dhaqaale xumo muddo 40 sano ah cudurka coronavirus awgii. bangiga ayaa sheegay inuu filayo in kala bar dalalkaasi ay soo gaarto saameyn dhaqaale. bangiga wuxuu intaasi ku daray in hakad la geliyay howlaha dalxiiska lana joojiyay warshadaha reer galbeedka, taasoo keentay in shaqo la'aan ay ku dhacdo malaayiin shaqaale oo ka tirsanaa warshadahaasi. ra'iisul wasaaraha Britain ee Boris Johnson ayaa sheegay inuu abaal u hayo dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka oo ka daweynayay cudurka COVID-19. Mr. Johnson ayaa haatan ka soo kabanaya cudurka, wuxuuna weli ku jiraa isbitaal ku yaala magaalada London qaybtiisa daryeelka degdega, halkaas oo uu ku jiray 3 maalmood. ugu dambeynna Taliban ayaa sheegtay in galinka dambe ee maanta ay xabsiga ka sii daayin doonto maxaabiis tiradoodu tahay 20, waana maxaabiistii ugu horeysay ee xabsi ka sii dayso tan iyo bishii February, markaas oo ay heshiis nabadeed la saxiixdeen Mareykanka. maxaabiista ayaa lagu wareejin doonaa wakiilada ururka Laanqeyrta Cas ee ku sugan magaalada Kandahar ee dalka Afghanistan. warkii dunidana waa naga intaa Bushra. Kowtar aad ayay u mahadsan tahay. dhagaystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilownay wasiiru dawlihii cadaaladda Hirshabeelle Khaliif Muumin ayaa goor dhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho. marxuumka ayaa ka mid ahaa 9 ruux oo maalin ka hor wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay xaqiijisay in laga helay cudurka COVID-19. haddaba waxaa qadka Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan. Ibraahim, bal arrintan nooga waran.
bushra waad mahadsan tahay wasiirro ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo aan la hadlay dhammaantood waxay b b c da u xaqiijiyeen in wasiir dowlihii wasaaradda cadaaladda ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle islamarkaana ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaan goboleedka hirshabeelle khaliif muumin toxow in uu maanta ku geeriyooday cisbitalkii lagu daweynayay ee ku yiilay magaalada muqdisho kaasoo maalin ka hor la ogaaday in uu qabo xanuunka covid-19 kadib markii xanuun looga soo qaaday magaalada jowhar oo la keenay magaalada muqdisho si loogu baxnaaniyo markii laga qaaday baaritaanadana ay baaritaanadu sheegeen in uu xanuunkaasi qabay xaaladiisu ilaa shalay way kasoo daraysay wasiir ka tirsan hirshabeelle oo shalay ee b b c du la hadashay wuxuu u sheegay in qaybta xaaladda daweynta degdega ah la dhigay xaaladiisuna ay ahayd mid liidata laakiin ugu dambeyntii marxuumkaasi maanta ayuu geeriyooday ilahaas kala duwan ayaana b b c da u xaqiijiyey bushra ibraahim waxaa tan iyo shalay soo baxayay warar ah in marxuumka uu dad badan la kulmay ka hor inta aanan cudurka soo ridan bal taa nooga waran dabcan waxaad la socotaa in wasiirka uu muddaba ku xanuunsanayay magaalada jowhar oo ah xarunta maamulka hirshabeelle uu ku shaqeeyo markii xaaladiisu ay kasoo dartayna loo soo wareejiyey magaalada muqdisho intaaba dad ayuu la macaamilayay sida ay saraakiisha maamulka hirshabeelle sheegeen qaarkood hore ayay isu karantiileen qaar kalena waxaa la sheegay in iyaga laftigooda laga qaaday baaritaano la xiriira kiiskaasi bushra kiiskani wuxuu noqonayaa kiiskii labaad ee cudurka covid-19 ugu dhinta soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay waxay ahaayeen 21 waxay noqonaysaa 2 inay ka bogsatay 2na ay u dhimatay tirada hadda cudurka uu hayana waa 17 sida saraakiisha wasaaradda tirakoobyada ay maalinlaha usoo saarto uu yahay ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay wararkaasi wixii la xiriiran dhegeystayaal waxaad ka daalacan kartaan boggeena bbcsomali.com isla wararka corona ee soomaaliya ayaan ku guda jirnaayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shacabkiisa waxa uu ka codsaday inay ku dadaalaan fiijignaanta ku aadan cudurka coronavirus maadaama adeegyada caafimaadka ee dalka aanay gaarsiisnayn heer wax badan loogu qaban karo shacabka iyadoo xanuunkaasi laga helay dhaqaatiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa inoo suura inaan la hadalno dr maxamed cusmaan maxamed oo loo yaqaano nasiim kana mid ahaa dhaqaatiirtii laga helay cudurka wuxuuna ka mid yahay guddiga soomaaliya u qaabilsan la tacaalidda xanuunka covid-19 qadka telefoonka ayuu dr nasiim ugu waramay waryaha b b c da cabdifataax ibraahim cagayare maalinkii la iigu sheegay in laiga helay xanuunka covid-19 sidii xaaladayda ahayd iyo maanta waxaan dareemaya alxamdulilah rabbilcaalamiin inaan sidii hore kasoo fiicnaanayo oo hadda xaaladayda sidii hore ay kasoo wanaagsanaanayso oo hadda calaamado fara badan oo aan lahaa hadda aan dareemayo in xoogaa iga sii yaraanayaan sida quficii oo kale iyo neefqabitinkii oo kale maadaama aniga aan ahaa qof oo asmatic ah ama dadka neefta qabo ayna ku jiraan dadka u nugul in xanuunka haddii uu ku dhaco ama khatarta ay galaan laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay marxaladaas hadda inuu isoo gudbiyaan aan ilaahay subxana watacaala ka rajeynaya inta ii dhimanna in nabad ilaahay subxana watacaala ee caafimaad uu igu dhamaysay aan bulshadeeda ugu adeego intaan lagu baarin adiga ma iska shakisay sida lawada ogsoon yahay xanuunkan dadka ugu horeeya uu ku dhaco dadka bahda caafimaadka ah waxaan ka mid ahay guddiga coronavirus loo sameeyey dadkii shakiga looga qabay xanuunka dadkii uu ku dhacay waa ka shaqaynaynay bukaanadii marka hore aniga shakigaas uu igu jiray calaamada ugu horeeyay oo aad dareema waxay ahayd neefta inay xoogaa aad iida dhibtay kadibna aan marka saas oo kale neefta ii qabato daawooyinka aan ku fiicnaan jirayna inay wax iga tari waayeen marka kadib waa lagu baaray waa lagaa helay xaggeed isleedahay marka xanuunkan uu kaa soo raacay mar haddaad tahay howlwadeen caafimaad dadkii dibadda ka imanayay oo karantiilnaa ama dadkii baaritaanka loo sameynayay ama dadkii shakiga laga qabay inay xanuunka qabaan inaad la tacaamulaysid aad ku dhex jirtid qaarkood inta badan adiga aad la joogaysid si kasta adoo u dadaalaysid waxaa laga yaabaa in uu xanuunka si un uu kugu dhaco exactly maadaamaan ahay qof caafimaad ka shaqeeya way adag tahay maanta inaan iraahdo halkaasuu xanuunka iga soo gaaray laakiin in general markaan u hadlo bukaanadii aan la tacaamulayay inay iga soo gaareen dadkii aan saacidayay inuu iga soo gaaray xanuunka intaas una badan tahay bulshadana wuu ku jiraa xanuunka dabcan waxaad ka mid tahay guddiga soomaaliya u xil saaran ee la dagaalanka cudurkan goobta karantiilkaad tagtaa goobta kale dadka bukaanada la sixiyaad tagtaa marka dadkaasaad qaabilaysid bukaanada iyo kuwa kale karantiilka ku jira laga shakisan yahay ee baaritaanadooda weli aan la dhammayn maadan xiran jirin miyaa qalabkan loogu talagalay howlwadeenada caafimaadka inay isaga ilaaliyaan cudurkan
waan xiran jiray mar kastana waan ku dadaali jiray laakiin waxaa jiri kara adiga gacantaada ka baxsan oo aadan garan karin meeluu kaaga yimaado laakiin normally annaga waan isticmaalnaa PPE-ga wax loo yaqaano markaan bukaanada la kulmeyno isagaa laba loo qaybiyaa mid full ah qofka asaga dhan inuu wada xirto iyo kuwa oo qofka oo partial ah oo kale inuu xirto marka labadaba waan isticmaali jirnay. maxay tahay marka talooyinka aad isleedahay waad u gudbin kartaa dadka xanuunkan uu haleelay iyo kuwa uusan ku dhicin ee ka caawin kara in ay ka badbaadaan amaba ay sida aad adiga haatan uga soo kabsanay sidoo kale uga soo kabsadaan? talada koowaadaan siinaya waxay tahay bulshada horta kow inay raacaan fariimaha iyo wacyigelinada kaga imaanaya wasaaradda caafimaadka midda labaad in ay nadaafadda ku dadaalaan oo gacmaha markasta iska dhaqaan ayna ku dadaalaan dadka inay kala fogaadaan. talooyinka kale oo aan siinaya waxay tahay haddii qofku uu iskaga shakiyo xanuunka inuu qabo ama in calaamadihii qaarkood inuu isku arko fadlan waxaan ka codsanaynaa in gurigaaga aad joogtid iskuna daydo dadkii guriga kugula noolaa inaad ka fogaato kadibna markaas inaad la xiriirto bahda caafimaadka talooyinka lagu siiyana kadib aad qaadato. dadka laga hela xanuunkana bulshada waxaan ugu baaqi lahaa in ay iska daayaan takoorka wax loo yaqaano xanuunkan waa xanuun caadi ah qof kastuu ku dhici karaa ma ahan dadka inaan anaga takoorno oo aan idhaahdo qofkaas wuxuu qabaa. takoorka waxay keeni kartaa in dad fara badan xanuunka inay la dhuuntaan oo xaalad adag inay u dhintaan ama xaaladooda ay kasii darto ama dad kale inay kusii faafiyaan. kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cismaan Maxamed oo ka mid ah guddiga Soomaaliya u qaabilsan la tacaalidda xanuunka COVID-19 oo uu waramayay Cabdifataax Ibraahim Cagayare. halkaad weli nagala socotaan dhageystayaal waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. dalka Mareykanka ayaa hadda noqday wadanka ugu dhimashada badan adduunyada marka laga hadlayo cudurka coronavirus sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. tirada dhimashada Mareykanka ayaa hadda kor u dhaaftay 20,000 oo qof. hal maalin oo kaliya coronavirus wuxuu dalkaasi ku dilay 2,000 oo qof. wararkaasi waxaa isha soo mariyay oo inoo haya Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. warkan ayaa caddaynaya in Mareykanka uu noqday dalka tiro ahaan dadka u dhintay cudurka corona uu hadda ugu sarreeyo 20,000 oo qof ayaa la diiwaangeliyey. arrinkan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalin keliya uu Mareykanku ku waayey 2,000 oo qof oo xanuunkan uu dilay. barasaabka gobolka New York ayaa sheegay in dhimashada uu cudurkan sababayo ay u muuqato gobolkiisa mid sii yaraanaysa. waxa uu sheegay in dhowr maalmood oo isxigxigay ay 783 qof keliya u dhinteen cudurkaasi. gobolka New York ayaa noqday xudundhaxaadka faafitaanka cudurkaasi gudaha dalka Mareykanka waxaana cudurkan laga helay 180,000 oo qof halka guud ahaan dalka Mareykanka dadka cudurkan uu soo ritay lagu sheegay 520,000 oo qof ilaa shalay oo sabti ahayd. hal gobol oo keliya ayaa dalkaasi Mareykanka oo dhan ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si looga jawaabo faafitaanka cudurkani oo in ka badan 100,000 oo qof ay u dhinteen dunida oo dhan. dalka Talyaaniga haatan geeridu waxay maraysaa 19,468 qof halka Mareykanku ay ka tahay 20,506 qof sida lagu sheegay xogta jaamacadda Johns Hopkins. mas'uulka Mareykanka u qaabilsan cudurrada faafa ayaa sheegay in dalkaasi uu bilaabay inuu yareeyo heerka dhimashada iyo sidoo kale faafitaanka cudurkan balse waxa uu soo jeediyey waa mas'uulkaasi in aan la qaadan amarka ah in dadku ay kala fogaadaan. amarkaasi oo madaxweyne Trump uu soo saaray ayaa sii jiri doona ilaa 30 bisha Abriil. madaxweynaha ayaa haatan wajahaya culays shaqala'aanta ka dhalatay cudurkan oo haatan gaartay ugu yaraan 16 milyan oo qof taas oo dhaawac weyn ku ah dhaqaalaha dalkaasi Mareykanka. aqalka Koongareeska ayaa haatan ku dadaalaya sidii loo barataari lahaa dhaqaalaha dalkaasi. Catoosh aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal idaacaddii duhurnimo ayaan bartamaha kaga jirnay haatan aynu aadno Britain. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa oo hadda ka soo raysanayo cudurka COVID-19 ayaa sheegay in uusan hilmaami doonin abaalka ay u galeen dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ee dalkiisa kuwaas oo uu sheegay inay naftiisa badbaadiyeen. Mr Johnson ayaa weli ku sugan cisbitaal ku yaala London halkaas oo muddo 3 cisho ah oo ku jiray qolka xaaladda degdega ah. wararkii ugu dambeeyay corona ee guud ahaan UK waxaan goor dhaweyd ka waraystay wariyaha BBC-da London Mawlid Xaaji Cabdi. ilaa iyo hadda xaaladdu waxay u muuqataa mid weli cudurka coronavirus-ka uu farankulu ka hayo dalkan Ingiriiska. ninka ugu sarreeya hay'adda la yiraahdo Welcome Britain
oo hay'adda u qaabilsan dalkan Ingiriiska dhinaca sayniska oo la yiraahdo magaciisa Jeremy Farrer ayaa goor dhaweeyay BBC-da wuxuu u sheegay in UK ay noqon karto halka ugu daran Yurub oo cudurku sida weyn u faafay waxaana maanta la filayaa dhimashada haddii ay soo baxdo inay ka sara marto ilaa iyo 10,000 oo qof kadib markii shalay 917 oo qof ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19 dhinaca kale Priti Patel oo xogayaha arrimaha gudaha dalkan Ingiriiska oo shalay ka hadlaysay shir jiraad lagu qabtay xafiiska Downing Street waxa ay sheegtay in ilaa iyo hadda aanay ogaan karin xilliga la oran karo waa xilliga uu sare u kacayo cudurku oo dadka markaasi uu haleelayo laakiin waxay sheegtay in loo baahan yahay dadku in markaa ay ku dhaqaaqaan ilaalinta qawaaniinta iyo shuruucda iyo talooyinka dhinaca caafimaadka ee dowladda iyo hay'adaha caafimaadka ka soo baxaya oo ku aadan in dadku aysan isdhex gelin oo ay kala fogaadaan bushra waa la socotaa waddankan Ingiriiska iyo wadamo badan oo adduunka ku yaala waxay maalmahan u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda Easterka ee Masiixiga waxaana jirta xilligan oo kale in dadku ay aad isku booqan jireen laakiin digniinta la bixinayo waxay ahayd in aad loo kala fogaado isla markaasna la yareeyo ama aanay dhicinba dadku inay guryaha isku booqdaan si cudurku uuna u faafin si guud markaad u fiiriso xaalad dareen lah ayaa taagan bushra bal nooga waran xaaladii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson halkay maraysaa ra-iisul wasaare Boris Johnson oo ku jira isbitaalka St Thomas ee ku yaala bartamaha magaalada London waxaa la sheegay in uu xaaladiisa marmar ka dambaysa ay ka soo reynayso xafiiskiisa Downing Street-ka war ka soo baxay waxaa la sheegay ra-iisul wasaaruhu uu aad ugu mahadcelinayo howlwadeenada xagga caafimaadka isagoo weliba sheegay in naftiisii ay badbaadiyeen isla markaasna naftiisa uu hibeynaya iyaga oo wuxuu leeyahay la'aantood aanay suurtagal ahayn buu yidhi inaan ka kici karin cudurkan waxaa la sheegay in imika laga soo saaray goobtii xaaladda degdega imika lagu hayo meel gaar ah oo dadka caafimaadkoodu soo hagaagaya la geeyo waxaa la sheegay inuu bilaabay socod kooban laakiin waxaa la sheegay in aysan ahayn suurtagal inuu degdeg xafiiska ugu soo laabto ama shaqada ku soo laabto waxaa la leeyahay toddobaadyo ay qaadan kartaa in uu soo kabto waxaana jirta baaqiyo kala duwan oo ku aadan in uusan horey xafiiskiisa ama shaqada dib uga soo laaban oo ka soo yeeraya dhinacyo kala duwan qoyskiisa ama aabihiisa oo kale uu ka mid yahay laakiin Dominic Raab oo imika shaqada wada ahna wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in ay dowladdu si rasmiya ama si hagaagsan u shaqeynayso golaha wasiirada ay isla qaadanayaan talooyin isku dhaf ah oo loo dhan yahay mawliid xaaji cabdi aad ayuu u mahadsan yahay ciyaarihii haddii aynu eegno dhegeystayaal laacibkii hore ee kooxda Liverpool Kenny Dalglish oo maalmahan la xanuunsanaa cudurka COVID-19 ayaa maanta laga saaray cisbitaalka uu ku jiray kadib markii ay xaaladiisu wanaagsanaatay Dalglish oo 69 jir ah ayaa arbacadii la seexiyay cisbitaalka kadib markii uu xanuunka soo ritay madaxa xiriirka kubadda cagta ee Gabon ayaa kula taliyay laacibka dalkiisa u dhashay ee Pierre-Emerick Aubameyang inuu ku biiro koox wanaagsan oo isaga tago kooxda Arsenal haatana dhageystayaal baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac Samiiro mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdi Baadil Axmed oo jooga xerada qaxootiga ee Holhol waxa uu baafinaya dadka kale ah Maxamed Cabdi Baadil Xasan Cabdi Baadil iyo Faadumo Cabdi Baadil dhammaan dadkaasi waxa ugu dambeysay iyagoo ku sugan Jigjiga sanadii 2011 hadaba hadii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyay Cabdi Baadil Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Holhol xaawo Cusmaan Jeelle oo joogta Yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Luul Cusmaan Jeelle Leyle Cusmaan Jeelle iyo Maxamed Cusmaan Jeelle dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Beledweyne 2006 hadaba hadii ay maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo xaawo Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen Deeg Xasan Cabdi oo jooga xerada qaxootiga ee Holhol waxa uu baafinayaa Bashiir Cabdi Cali Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jigjiga sanadii 2008 hadaba hadii uu maqlayo Bashiir Cabdi Cali Nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Deeg Xasan Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Holhol ama telefoonka nambarkiisu yahay 253773 Abuukar Cali Eenow oo jooga
yemen waxa uu baafinayaa muumino cali eenow bashiir cali eenow iyo maryan cali eenow waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan baydhabo 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo abuukar cali eenow ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen. cabdiweli yuusuf axmed oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinaya ayuub yuusuf axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan talyaaniga sanadii 2009 haddaba haddii uuna maqlayo ayuub yuusuf axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdiweli yuusuf axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol. suleymaan guuleed cumar oo jooga yemen waxa uu baafinayaa mustafa guuleed iyo suleekha guuleed waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan boosaaso 2005 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo suleymaan guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. cabdiqaadir yuusuf dheeg oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinayaa maxamed yuusuf dheeg waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen sanadii 2017 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed yuusuf dheeg amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiya cabdiqaadir yuusuf dheeg iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol. asli cabdalla salaad oo joogta yemen waxay baafinaysaa fartuun cabdalla salaad iyo maxamed cabdalla salaad waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan balcad 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo asli cabdalla salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. safiye ibraahim cabdi oo joogta xerada qaxootiga ee holhol waxa ay baafinaysaa cabdiraxmaan axmed cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jarmalka sanadii 2018 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiraxmaan axmed cabdulaahi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo safiye ibraahim cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol amaba telefoonka nambarkiisu yahay 9537468 aamina isaaq cabdi oo joogta yemen waxay baafinaysaa neley isaaq cabdi iyo xasan isaaq cabdi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan baydhabo 2004 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aamina isaaq cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. axmed cabdulaahi guuleed oo jooga etoobiya waxa uu baafinayaa zakariye cabdulaahi guuleed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka turkiga sanadii 1998 haddaba haddii uuna maqlayo zakariye cabdulaahi guuleed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiye axmed cabdulaahi guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay etoobiya. faadumo cali jimcaale oo joogta yemen waxay baafinaysaa shukri cali jimcaale iyo mahad cali jimcaale waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan muqdisho 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan mabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo faadumo cali jimcaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. nimco maxamed xasan oo joogta adis ababa waxay baafinaysaa ridwaan maxamed xasan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan sacuudiga sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo ridwaan maxamed xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nimco maxamed xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay adis ababa. shamso cawil aadan oo joogta yemen waxay baafinaysaa xaawo cawil aadan xalimo cawil aadan iyo maxamed cawil aadan waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan muqdisho 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo shamse cawil aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. faadumo cabdi yuusuf oo joogta xerada qaxootiga ee cali cadde waxa ay baafinaysaa dadka kale ah cabdi yuusuf dhagaqoole iyo aamine cabdi baaruud waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan maraykanka sanadii 1994 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo faadumo cabdi yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee cali cadde. mahdi bare daahir oo jooga yemen waxa uu baafinayaa ayaan bare daahir sucaado bare daahir iyo khadra bare daahir dhammaan dadkaas waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan kismaayo 1999 haddaba haddii ayna maqlayaan mabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo mahdi bare daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen.
mawliid axmed maxamed oo jooga xerada qaxootiga ee holhol waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdiwaasac mawliid axmed mahad mawliid axmed asad mawliid axmed iyo canab xuseen bulaale dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo mawliid axmed maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee holhol cabdiraxmaan xasan jiini oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa shukri xasan jiini faarax xasan jiini iyo qamar xasan jiini waxa ugu wardambeysay dhammaantood ayagoo ku sugan Kismaayo 2006 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdiraxmaan xasan jiini iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Maghrib maxamuud xuseen maxamed oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa Axmed xasan maaj waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Djibouti sanadii 1994 haddaba haddii uu maqlay Axmed xasan maaj ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo maxamuud xuseen maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen amaba telefoonka nambarkiisu yahay 967771 eber 68388 shumay shaacir sheekh oo joogta Yemen waxay baafinaysaa xamzata shaacir sheekh iyo shaxshaxley shaacir sheekh waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Marko 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan xamzata shaacir iyo shaxshaxley shaacir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo shumay shaacir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen filsan xasan mahdi oo joogta Yemen waxa ay baafinaysaa Fayruus Umar Salim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan isla Yemen sanadii 2010 haddaba haddii ayna maqlaysa Fayruus Umar Salim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo filsan xasan mahdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen amiin suufi abaanuur oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah bakar suufi abaanuur cadow suufi abaanuur iyo maana suufi abaanuur dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Marko 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo aamina suufi abaanuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen jaamac cali jaamac oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah mahad cali jaamac iyo duniya cali jaamac waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Boosaaso sanadii 2006 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo jaamac cali jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen sahro macalin cali oo joogta Yemen waxay baafinaysaa sahar macalin cali iyo saabir macalin cali waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Muqdisho 2007 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo sahro macalin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen cabdulqaadir shariif cusmaan oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Xuseen Shariif Cusmaan Xasan Shariif Cusmaan iyo Aamino Shariif Cusmaan dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Balcad sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdulqaadir shariif cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen xalimo qaasim guutaale oo joogto Yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Faadumo qaasim guutaale Axmed qaasim guutaale iyo Sucaad qaasim guutaale waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Afgooye 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan ma bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo xalimo qaasim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen cali cumar axmed oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa burhaan jaamac mooge waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hargeysa haddaba haddii uu maqlayo burhaan jaamac mooge ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cali cumar axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen cabdinaasir shirwac dhaqane oo jooga Yemen waxa uu baafinayaa cabdisamad shirwac dhaqane batuulo shirwac dhaqane iyo barni shirwac dhaqane waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan beledweyne 1990
2003 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdinaasir shirwac dhaqane iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay yemen. bilan caraaya nageeye oo joogta yemen waxay baafinaysaa dadka kale ah Leyle Xuseen Gacal iyo Siraad Maxamed Nuur waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Talyaaniga sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo bilan caraaya nageeye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. Maryan Xuseen Barrow oo joogta yemen waxay baafinaysaa Ruqiyo Xuseen Barrow, Canab Xuseen Barrow iyo Maxamed Xuseen Barrow waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Afgooye 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Maryan Xuseen Barrow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay Faadimo Cali Barre oo joogta yemen waxay baafinaysaa Liibaan Maxamed Ibraahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Muqdisho sanadii 2004 haddaba haddii uuna maqlayo Liibaan Maxamed Ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Faadimo Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay yemen. barnaamijka duhurnimo waa naga intaas dhageystayaal anigoo Bushra Nuur Maxamed ayaa idin la socodsiinayay tan idaacadeena galabnimo Bushro iyo bahdii BBC da waxay idin leeyihiin waad ku mahadsantihiin dhageysigeena.